ofisan hay'adda horumarinta iyo nabadda ee Kisima ayaa magaalada Kismaayo ka bilowday barnaamijyo lagu horumarinayo dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Kismaayo warkan waxa inoo haya Xasan Yuusuf Maxamed oo loo yaqaan Shafad Yare hay'adda Kisima oo toddobaadkan tirakoob ay ku tirakoobaysa dadka danta yar ee ku nool xaafadaha shaqaalaha iyo calanley ee magaalada Kismaayo ayaa maanta waxa ay ka warbixisay tirakoobkii ay ka sameeysay xaafadahaasi iyadoona mas'uuliyiinta hay'adda Kisima ay sheegeen in ay wadaan olole qashinka looga qaadayo xaafadaha calanley iyo shaqaalaha iyadoona mas'uuliyiinta hay'adda Kisima ay sheegeen in shaqaalaha ka shaqeynaya howlaha qashinka looga qaadayo xaafadahaasi ay ka soo xuli dadka danta yar ee ku nool xaafadahaasi si shaqo abuur loogu sameeyo dadka danta yar ee ku nool xaafadaha calanley iyo shaqaalaha mid ka mid ah shaqaalaha hay'adda Kisima ayaa uga warbixiyay TV-ga dawladda Jubbaland howlaha ay ka sameynayaan xaafadaha shaqaalaha iyo calanley ee ay ku tirakoobayaan dadka danta yar ee ku nool labadaasi xaafadood waxaan ka soconaa hay'adda Kisima waxaan nahay shaqaalaha hay'adda Kisima mashruuca Just Jobs mashruucaas oo ah mashruuc laga fulinayo laba xaafadood oo kala ah shaqaalaha iyo calanley anaga dadka waxaan nahay shaqaale assessment-ka sameeyay shaqaalaha waa noo soo dhamaatay haddana wax ku dhex jirnaa waa xaafadda calanley waaxdeeda iftin ilaa 24 bisha ayaan wadnay marka waa saddex mashruuc saddex project weeyaan waa qashin xaaqid qashin laga gurayo iyo suuliyaal musqulo kuwa la qodiyo iyo ceelasha oo kuwa la dayactirayo iyo kuwa la qodiyo marka waxaan sameeynaa shaqaalihii ka shaqeyn lahaa mashruucyadaas baan rabaa in xaafadda dhexdeeda laga qaato xaafadda shaqaalaha marka waxaan rabaa dadka eligibility-ga u lahaa oo ka shaqeyn shaqada qaban kara inaan ka soo dhex saarno bulshadaas xaafadda calanley iyo shaqaalaha oo hadda assessment-kiisa noo soo dhamaaday marka meel fiican bay noo martaa haddana shaqada si fiican bay noogu socotaa waxaan rabnaa shaqaalaha ka shaqeynaya maadaama ayagoo ay u heleen labada xaafadood ayagoo ay u heleen weliba labada xaafadood hataa ma dhammaystirna waa saddex waaxood ka mid ah maadaama ay ku guuleysteen in xaafadooda laga fuliyo shaqaale ka shaqeyn lahaan in ayaan ka soo dhex saarnaa oo si cadaalad aan ku dooranno oo aysan macnaheedu dad la keenay oo soo qoraysan ahayn aan assessment-ka aan sameeynay aan ku bees gareyno marka ma sha Allah shaqada meel fiican bay maraysaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ka socda barnaamijyo shaqo loogu abuurayo dadka danta yar ee ku nool magaalada Kismaayo iyadoona magaaladu ay ku hawlgalaan hay'ado samafal